gudoomiyaha ismaamulka Gaarisa Cali Bunow Qorane ayaa caawa ku jira gacanta ciidamada booliiska dalka Kenya kuwa oo gelinkii dambe ee maanta gudoomiyaha gacanta ku soo dhigay isagoo loo haysto eedeymo la xiriira in isaga iyo mas'uuliyiin kale oo maamulkiisa xilal ka haya ay ku dhaqaaqeen falal ku takrifal hantida dadweynaha ah iyadoo malaayiin lacagta shilinka dalka Kenya lagu tuumayo in ay musuqmaasuqeen agaasimaha guud ee hay'adda dacwad soo oogista dalka Kenya Nuruddin Yusuf Haji ayaa dhawaan waxa uu soo saaray warbixin uu ku sheegayo in gudoomiye Cali Bunow Qorane maamulkiisa uu hareeyay musuqmaasuq isla markaana la lunsaday lacago ka badan 233 milyan oo shilinka dalka Kenya lacagahaasi oo laga soo amaahday bangiga adduunka looguna talagalay in wax loogu qabto dadka ismaamulka Gaarisa haasaate aysan gaarin warbixin ka soo baxday guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa dalka Kenya dabayaaqada toddobaadkii aynu ka soo gudubnay ayaa waxa lagu sheegay in lacagahaasi ay muuqdaan in Cali Bunow Qorane iyo mas'uuliyiinta kale ee xilalka ka haya maamulkiisa ay ku shubteen bangiyo gaar ah taasi oo u muuqata inay tahay xatooyo dadweyne oo aan meelna loogu soo gaban sida warbixinta lagu sheegay waxa berito loo balansan yahay in si toos ah loo dhageysto kiis dacwadeedka la xiriira musuqmaasuqa ee lagu soo eedeeyay gudoomiyaha ismaamulka Gaarisa iyo mas'uuliyiinta kale ee xilalka ka haya maamulka uu gudoomiyaha ka yahay waxaan la ogaan karin berito xaaladda sida ay noqon karto laakiin dad badan oo waqooyi bari Kenya ku sugan ayaa horay waxa ay uga codsanayeen guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa dalka Kenya in ay soo farageliyaan guud ahaanba ismaamulada waqooyi bari Kenya oo ay tuhmayaan in madaxda ugu sareysa maamuladooda uu hareeyay musuqmaasuq baahsan